gudoomiyaha xisbiga muxaafidka kulmiye Muuse Biixi Cabdi markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay eedeymihi ka soo baxay xisbiyada mucaaradka Soomaaliland iyo madasha wada tashiga ay ku eedeynayeen xukuumadda Soomaaliland in heshiis Soomaaliweyn ay la gashay dawladda Soomaaliya iyo Puntland. Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in warbixinta WikiLeaks iyo eedeynta xisbiyada mucaaradka yihiin qaar been abuura. waxaanu yidhi dalkii baa la iibiyey oo waliba nin odayaasha dalkii uu yiraahdo oo madaxda qaran ka mid oo siyaasadda ku jira inuu dhahdo dalkii waa la iibiyey. Soomaaliland lama iibin karo, lamana baayici karo, wax kala soo mariyana maaha. Arrinta la boonboonayo waraaqda la yiri waxa laga helay WikiLeaks iyo waxba laga helay. Arrinta warqadda anagu warma hayno. ma inaan ogeyn intii aynu joogno wafti aanu leenahay oo wasiir kharashiga ka mid yahay oo madaxweynuhu ka mid yahay Sacuudiga tagay ma jirin shir Sacuudiga wasiir kharashiisa iyo wasiir kharashiga hor wada galayna ma jirin madaxweynaheena iyo dawladda Sacuudiga shan sano shir wada galayna ma jirin waayandar waxay ku egtahay shalay ereyga waxa yiri gudoomiyaha golaha xisbiga wadani isaga looga fadhiya cadeynteeda tan kulmiyanahay ma nihin dadkii Soomaaliland taasoo kale kuna hindisoona la soo afkoodana la soo marin lahaa dareenkeedana qaba waxaan oran karaa layrigu biyaha calooshiisa ku jira ayuu ka tidaa ninka waxa dadka soo dhaxdhigay waa wax calooshiisa ku jira ama isaga dareenkiisa gali kara taa umada waxaan sheegayaa inaan waxba ka jirin dareenkeeda aynaan lahayn waxaynu gelinaa aynaan ahayn umadana ay ku tahay ceeb iyo meel ka dhac waxaas kala loo yimaado. gudoomiyaha xisbiga talada haya kulmiye Muuse Biixi Cabdi waxa uu markii ugu horeysay mar kale uu ka hadlay eedeymaha loo soo jeediyay wasiirkii hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar isagoo Dr. Cumar ku tilmaamay nin qaranka Soomaaliland qiimo weyn ku leh oo wax badan u qabtay waxaanu sheegay inaanu qalmin in la eedeeyo Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar. arrinta wasiirkii hore khaarijiga oo arrinta lagu duray أنا وحنا قبائل وها نندل يراء وأقوياءنا ودلك سأنتي وشغالي هؤلاء ورسالة قبتي كان مدن أمان أنا كم مدنين سبب الله يسوي إنك الله دردرو لقد وتجا أو أنكر درهية ما جاهين ما جرت تذكر يسوي وحنا نسبيله وحنا ورم الجو ما نرعده لقد داعي يسوي دخل بيطون afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Axmed Saleebaan Duxul isna waxa uu ka hadlay eedeymihii xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ay u jeediyeen xukuumadda Soomaaliland ee lagu eedeynayay warbixinta WikiLeaks ee ka hadlaysay in xukuumadda Soomaaliland heshiis ay la gashay Soomaaliya dhinaca federalismka. afayeen Duxul waxa uu sheegay in warbixintaasi iyo eedeymaha ka soo baxaya xisbiyada mucaaradka yihiin qaar dacayada been abuura oo wax lagu yeelayo nidaamka iyo shuruucda xukuumadda Soomaaliland. afayeenka oo jawaab ka bixinaya una jawaabaya xisbiyada mucaaradka ayaa waxa uu yiri waxa taasi inaga firan oo u baahan marka war lagu sheego warkaasi suurtagalnimadiisa wax waliba wuxuu leeyahay miisaan la saaro lagu eego waxa suurtagalnimadiisa ayaynan u jirin shirkii ugu dambeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay turku ku wada galeen haday jirto in dawladda Soomaaliland ay u habranayso in shir qarsoodi uu socdo miiska gabay soo kacdeen waa xaqiiqi Soomaaliland iyo Soomaaliya shirbe ku jiraan shirarkaasi danta Soomaaliland waxa weey in si nabada oo jaalnimo oo walaalnimo dadka aanu kala baxno waxa weey rag mucaaradkii waxay yiraahdeen oo ay ku wadeen madaxweynaha qaar baa yiri waa khaymood waa nasiib darro waayeen darro madaxweynaha Soomaaliland silaayo sida la socotaan wuxuu ku yimid dawladdii dadkan dhibaatada ku haysay mas'uul buu ka kaali weyn buu ku lahaa wixii buu ka hayay kadib markii dawladdaasi uu ka mid ahaa intii u dhaxaysay 87 ficilladii ay dadkeena ku haysay markii uu arkay wuxuu go'aansaday inuu taasi ku jiritaankeegu si xarayn lagu jiri karo. afayeenka madaxtooyada Soomaaliland sidoo kale waxa uu ka hadlay eedeyntii wasiirkii hore arrimaha dibadda Maxamed Cabdullaahi Cumar u jeediyay wasiirka madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali Xasan. Maxamed Cabdullaahi uu degdegay inuu sugaayay bal sida uu xirsi arrintaasi uga jawaabo
laakiin eedayn aad u kulul iyo waliba aflagaado u badan ayuu maxamed cabdilaahi xalay toole ninkii difaacay waliba difaacay xisbiga difaacay ayuu weerar ku qaaday runtii inaad hubsatay nin weyn oo badaqaana isagoo hubsay maalaan hadlayna waa geed qolof ka dhacday xirsina waxa uu qarankan u guday iyo waxa uu qabtay iyo kaalinta uu kaga jiro shacabka Soomaaliland buu yoogiye markii uu afeenka madaxtooyada Soomaaliland uu eedeymaha u jeediyay wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Cabdulaahi Cumar ayaa telefishinka Star TV waxa weydiiyay su'aal nuxurkeedu ahaa sababta keentay in isagoo wasiirka madaxtooyadu xafiiskiisa fadhiya oo isaga leedeeyay uu afeen dhuxul uu ka jawaabo eedeymaha loo soo jeediyay wasiirka madaxtooyada su'aashina waxa uu dhacday أحمد سليمان دحول أفين كعقل كمدحتي الصومال أضبط ما صنتهاي فرصة صحافة سواء كانت علنا سيدا ديرلانت اللي عاد سؤال وكتشوف إن شاء الله أفين وحنا صنع قنية طن إذا أنت محمد عبد الله عمر تلفزيون ستار تي في بقى وريستي أنا كقاضي وحياة مودي وحكم إذا ويسوق يدي حسي أدوكم تيد حس على حسن وعطي أفين كمدحلها الصومال حرسنا قول كن يحكوا كتشلا أنا حفيز كاي جواكن markaad ugu jawaabaysid xirsi ma xirsi baa baqaya ma adiga guuxaaga ka dheereynaya WikiLeaks marka laga imaadana waa shabakad weyn oo dunida oo Mareykanka iyo Faransiiska fashilisay dadka qaar waxay u qaadan karaan marka adiga lagu leeyahay jawaab in warka leaks uu noqon karo maadaama cidii la eedeynayay iyo cidii eedeynta ku jirtay ay su'aali ka jawaabi kar laaday wayna qolkan ku jirto tan imika adiga weydiinaysaa waxna qaranimada inaan difaaco xaq baan u leeyahay waa waxaan u taaganahay sharafta qarankeenu leeyahay iyo madaxtooyadeenu leeyahayna iska dhaaf aniga qof kastoo muwaadin ah xaq u leeyahay ka jawaabo oo sharaftaasi iyo qaranimadaasi u ilaaliyo